saacadihii la soo dhaafay warbaahinta Itoobiya waxa ay tabinaysay hadal ka soo yaray ra'iisul wasaaraha dalkeeda Abiy Ahmed kuna aadana damaca Itoobiya ay ku raadinayso adeegsiga badda cas waa hadalkii ugu adkaa uguna dheeraa in muddaha uu jeediyo madaxa ugu sarreeyay Itoobiya waxay ahayd khudbad qaadatay 45 daqiiqo oo xiriir ah oo uu jeediyo xubin sare oo ka tirsan hoggaanka Itoobiya iyo xisbiga barwaaqo ee hoggaanka u haya dalkaas ra'iisul Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu si cad u sheegay in dalkiisa uu hadda wixii ka dambeeya ka aamusnaan karin badla'aanta muddada dheer haysata Abiy ayaa carabka aan ka dhowrin kuwa ay yihiin dekedaha badda cas ee ay Itoobiya danaynayso iyo qaabka uu rabo inay gacanteeda ku soo galaan Saylac oo ku taala xeebaha galbeed ee Soomaaliya iyo Casab oo Eritrea leedahay waa meelaha uu ku sheegay inuu ka fakarayo balse laakiin dib kuma qabna kala doorashadooda ayuu hadalkiisa raaciyay warbixinta waxaan si toos ugu dul istaagi doonaa qaybaha muhiimka ee khudbadda ku jiray ee uu kaga hadlay dagaalka dekedaha ee Itoobiya qorsheynayso waxaana inta badan aan toos idin kula wadaagi doonaa turjumaadda tooska ee hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed hadal jeedinta oo ka koobneed 45 daqiiqo ee xiriirka qaybta hore waxa uu Abiy kaga hadlay faa'iidada biyaha iyo sida ay laga maarmaanka ugu yihiin nolosha aadanaha waa afeef ama gogol xaar uu rabay inuu ku horumariyo qaybaha kale ee khudbadiisa oo uu hubay inay hadalhayn badan abuuri doonto bilowga hadalkiisa ee ka hadalka badda cas waxa uu ku iba furayaa arrinta ku saabsan midnimada geeska Afrika iyo haddii wadamada ku yaala gobolka ay hal dal noqon lahaayeen iyo sida uu xalku noqon lahaa waxa uu xusay inta dal waliba gaarkiisa u taagan yahay inaan la gaari karin wax weyn oo horumar ah ለየብቻ ትችላላችሁ ግን የትም አትደርሱ ለምሳሌ gaarkiina waad u istaagi kartaa laakiin meel gaari maysaan tusaale ahaan Eritrea Djibouti Soomaaliya iyo Itoobiya haddii ay hal dal noqon lahaayeen federaal ama qaabka ay doonaan ha ku midoobeen ma u malaynaysaa in midba kan kale uu tuugsan lahaa maya waxaan noqon lahayn quwado la mid ah Ruushka Mareykanka iyo Shiinaha አንድ መሆን ያለብን ለሱ ሰላምስ midnimada marka laga yimaado waa arrinta labaad waa nabadgelyada nabadgelyo marka la helo waxa ugu horeeya ay tahay in laga hadlo waa badda cas waa in si rasmi ah looga wada hadlo arrinta badda cas አንደኛው መታየት ያለበት ቀይ ባህር ነው የቀይ ባህር ጉዳይ በደንብ ma hayna dhahdaan kama hadli karno kama wada doodi karno dagaal ayay hurunaysaa annagu dagaal ma rabno ayuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya ሶስተኛው ጠቅላይ አፍሪካ ቀንድ ነው helitaanka dekada Itoobiya yeelato Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dalkiisu uu yahay mid biyo leh laakiin haraadan waa dalka kaliya ee geeska Afrika biyaha siiya laakiin aan waxba kaga bedelan ayuu yiri isagoo ka jawaabay weydiinta ahayd Itoobiya inay u baahan tahay albaab dhinaca badda ah u bannaan waa sidoo hadalka u dhigay waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya ኢትዮጵያ ማለት በትክክለኛው እቺ ናት ይሄ ቀይ ባህር ይታያችሁ እዚህ ጋር ፈርሰው ይታያል halkan soo fiiriya tani waa badda cas kana waa wabiga Niilka Itoobiya labadooda ayay u dhaxaysaa biyahaaga waa la wada leeyahay laakiin keena annaga ayaa iska leh ma aha aragti dabiici ah oo shaqayn karta አይሰራም ኔቸር እንደዛ አይልም ለምሳሌ እኔ የማንም ሀገር ትልቅ ሀገር የሚባል ሰው markii aan la kulmo madaxda caalamka ama aan ka wada hadlo inaan wada shaqayn yeelano waxay hadalka ii raaciyaan arrinta biyo xireenka Niilka sida looga wada faa'iideysan karo haddii aan dhaho annaga ayaa iska leh oo lacagteena ku dhisanay ma jirto cidiga maqlaysa ማንም አይሰማኝም አባይማ እናንተ ብቻ አይደለም laakiin taas bedelkeeda haddii aan anugu soo hadal qaado badda cas ceeb weyn ayaa loo arkaa የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን ያንተን አባይ ያንተን ዳሴ ከነገ biyo xireenkii aad lacagtaada ku dhisatay ayaa sidii loo doono looga hadlayaa እንደፈለገው እየተነጋገረ አንተ ግን ቀይ ባህርን የሚያክል ነገር adiga oo baarlamaanka in ceeb ayaad u aragtaa in badda cas laga hadlo sida ku dhici kartaa maxaa inoo diidaya inaan ka doodno ከመጣም እንደሚያስከትለው ማያስከትለው ለመነጋገር እንዴት እናፍራለን ቀይ ባህርና badda cas iyo wabiga Niilka waxay saldhig u yihiin kobaca Itoobiya sida looga faa'iideysan karo waa laga hadli doonaa dhibaato ma leh dhibaato ma jirto ችግር የለውም ma ogtahay faras taxi in asbuuc walba ka samayn kartid lacag 2,000 taaban iyo offer haddii aad qaadato 10 trip waxaad helaysaa 500 oo faras maylisa haddii aad qaadato 15 trip waxaad helaysaa 1,000 faras maylisa ama haddii aad qaadato 30 trip waxaad helaysaa 2,000 oo faras maylisa haddaba la soo deg abka faras baahida dalkiisa iyo dekad la'aanta qodob kale oo hadalkiisa aad ugu dheeraaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu ahaa tirada xawliga ku socotay ee Itoobiyaanka
oo la saadaalinaya in sanadka 2030 ay gaarayso 150 milyan oo qof waxa uu sheegay in dadkiisa aan lagu hayn karin xabsi juqraafiyadeed maalinta dhammaadkeedana ay qarxi doonaan haddii aan hadda laga hadlin arrinta badda oo aan miiska la soo saarin አንዳንዶች የቀይ ባህር ጉዳይ ሳናነሳ waxaa jira dad cabsanaya oo ku dhahaya haddii arrintan la taabtaabto waxa ay isku dhici karaan Eritrea ama Djibouti ቢቀርብንስ ከኤርትራ ቢያጋጨንስ ከጅቡቲ ቢያጋጨንስ የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ 50 ሚሊዮን ነበርክ waxaan u sheegayaa 50 milyan ayaad ahayd haddase 150 milyan ayaad noqonaysaa dhowr sano kadib dadkaasi kuma noolaan doonaan xabsi juqraafiyeed sababtoo ah waxa jira baahi daran ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም አንደኛ ደህንነት አለ እንደምታውቁት jeclow ama nibcow dadkaasi way qarxayaan maalin maalmaha ka mid ah si looga hortago qarxaasi aadka u weyn waxaa waajiba in laga wada tashado haddii aan dakhli badan ururino dhir badan aan beerno laakiin aan badda cas weyno wax macno ah samayn mayso ፍላጎታችን ሰላም አንድነት ብልጽግና ነው በቀይ ባህር ምክንያት የምናጣው ከሆነ ዋጋ የለውም wada hadalka waan kaga doodi karnaa inaan la joogin waqtigeedii iyo in helitaanka badda cas auna macno inoo samaynayn haddii taas dambe aan isla qaadano waan ka maarmi karnaa laakiin su'aashu waxay tahay maxaan uga cabsanaynaa inaan wada hadalno maxaa yeelay annagaba arrinta webiga niilka cidna nagama cabsato mar kale wuxuu ku dheeraaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya sida biyaha Itoobiya ka taga ay munaafacaad ugu leeyihiin dalalka dariska ah balse wuxuu ku eedeeyay kheyraadka Itoobiya oo kaliya aan la qaybsan ee Itoobiyana ay hesho xaqa uu sheegay inay kaga maqan yahay dalalka dariska la ma jirto hal dal oo Itoobiya siiya litir barki oo biyo ah ayuu raaciyay hadalkiisa khudbadiisa waxa uu ku xusay webiyada Itoobiya ka rogmada oo ku daray labada webi ee Shabeelle iyo Ganaane oo ku sheegay deeqaha Itoobiya وين خيرات كبيها قام ميسامة الله استعمال أيوه رئيس الوزراء أبي وابي شبالي كزي متال سوماليا هيدا ما أنه كإثيوبيا وهم ما يصدقوا قربيتوچا خطبتي سر وزراء إثيوبيا وحو كفا فهي تاريخان إن دلكيسو ومرهورة قعنت كو هنشري حيبها بدعاس لكن وقته كفوقيي حلقان أيتاين لغا شقايا سيدي مركلا لوغو دوان لها بدعاسا أقسمايت كينغدم ميبالو waxaad ogtiin in boqortooyada Aksum ay ka talin jirtay inta ugu badan ee badda cas buugayga madamar markii aan ku qorayay saameynta ay leedahay u dhawaanshaha ama ka fogaanshaha badda cas waa wax taariikh ku salaysan sidee ayaan mar kale ugu dhawaanaa xeebaha waa weydiinta ay tahay in la iska wareysto ዋናው ችግር የሚመጣው እንዴት ነው የምንቀርበው ነው 120 ሚሊዮን ስለሆን ጉልበት ስላለኝ maadaama aan nahay 120 milyan oo aan ciidan military leenahay diyaaradaha haysano xoog iyo inaan dadlayna ma ku qabsan karnaa badda anigu waxa aan qabaa maya dagaal laguma qabsan karo laakiin inaga oo dagaal ka caranayna inaan xaqiiqada ka tagno looma baahna sidee wax noqonayaan waan isla eegi doonaa dhibaato male እንዴት እንደሚፈጸም አብረና ያለን ችግር የለውም ቀረብ ሲል ደግሞ በንጉሱ ጊዜ እንደምታዩት xilligii boqortooyada waxaad arki kartaan inaan bad lahayn iyaduna waa taariikh jirta oo aadan dafiri karin sidee ayay Itoobiya bad ku lahayd ama ku weyday waa arrin kale laakiin muhiimadu waa inay bad lahayd ነበር እንዴት መጣ እንዴት ሄደን እንከራከርበታለን ግን ነበር anfarta iyo Soomaalida intii ay socotay khudbadda dheer ee wasaaraha Itoobiya uu kaga hadlay baadi goobka uu dalkiisu ugu jira sidii xeeb loo heli lahaa waxa uu ku soo qaatay arrinta la xiriirta badaha iyo qowmiyadaha anfarta iyo Soomaalidu waa labada qowmiyadeed ee sida gaarka u taabtay aan kula wadaaga wixii uu ka yiri Soomaalida Soomaali Ethiopia ውስጥ አለ ጅቡቲ ውስጥ አለ Soomaalidu waxay ku nool yihiin Ethiopia Djibouti Kenya iyo Soomaaliya meel kalena waa ay ku nool yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa xoogooda ጅቡቲ ያለው Soomaalida Djibouti ku nool waxay haystaan badda cas Soomaalida Soomaaliyana waxa ay leeyihiin badda cas iyo badweynta Hindiya tan Kenya waxay haystaan badweynta Hindiya weydiintu waxay tahay Soomaalida Ethiopia ku nool maxay tahay sababta badaha looga mamnuucay ሁሉም ጋር ያለ ሶማሌ ያገኘ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሶማሌ ለምን ተከለከለ ህዝብ እዚህም ካለ እዚያም ካለ ለምንድን ነው ለብቻ የተከለከለው maalgashiga Ethiopia Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu hadalkiisa raaciyay cabsida xooggan ee ka haysata mustaqbalka dalkiisa ee bad la'aanta helitaanka baddu waxa ay ku xiran tahay jiritaankeena ayuu yiri waxa uu sheegay in dekedaha dalalka geeska ee ay maal gashanayaan wadamada kale ayna jirin sabab dalkiisa ka hor istaagaysa
inay sameeyaan maalgashi la mida kuwa Shiinaha iyo Imaaraadka oo magacooda xusay. Djibouti lay sida aad ogtiin dekadaha Djibouti waxa maalgeliya Shiinaha, dekada Berbera waxa maalgeliya Imaaraadka. Turkigu hadda waxa uu maalgelin ka wadaa dekada Muqdisho. Turki kamata UAE kamata manaan kamata min allabad in taqaamiyoቹ invest binaarag inta ay imaanayaan wadamadan oo dhan annaga maxaa annaga oo adeegayaasha ugu badan leh nologu diidan yahay inaan maalgashi ku sameeyno dekadahan maya ee cabsi baan idinka qabnaa waa hagaaga maxay Itoobiya ku bedelanaysaa damaceeda badda qayb kale oo khudbadda kamid ah waxa uu kaga hadlayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa Itoobiya ku bedelanayso hadiiba ay dhacdo in dal kale ay dekadihiisa wada hadal kala yeelato waxa uu tilmaamay in la kala doorashada dekadaha ayna isaga hadda wax culaysa ku hayn Saylac Asab ama Adulusa hadaladiisa ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa kamid ahaa gard በአፍሪካ አንደኛው ዳም ነው waxaad ogtihiin biyo xireenka Abbaay inuu yahay kan Afrika ugu weyn oo hadda dhamaad ku dhow haddii aan maal gashano dekada Asab ama Saylac maal gashano aan maalgelin ku sameeyno Adulus oo Eritrea ku taala 30% 20% share usadu waxaan oran karaa idinku saami dhan 20% ama 30 ka qaata biyo xireenka malihin masiya laakiin waan ognahay inaan u baahanahay haddii aad biyo xireenka diidaan waxaan leenahay shirkadda duulimaadyada Itoobiya oo Afrika ugu horeysa 20 ama 30% qaata annagana dekadna siiya waan dhihi karnaa haddii aad diidaan waxaan saami idinka siin karnaa shirkadda Ethiopian Telecom oo 70 milyan oo qof ay isticmaalaan caalamkiiba waad u yeerateen ee annana aanu maal gashanno laakiin haddii aad dhahdaan biyo xireenka hal laga wada hadlo badana yaan la soo hadal qaadin taasi dhici mayso 25 bilyan invest binaarag marka aan sidaas leeyahay waxaan ka hadlayaa xisaab aanu isu geysanay ayuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya yaa watal abi waxa uu sheegay in dunida aanu ka jirin dal baaxad ahaan Itoobiya leeg badna u dhow haddana aan bad lahayn wuxuu intaas raaciyay in Itoobiya iyo badda uu u dhaxeeyo diilin yar oo kaliya fariin ayuu u diray madaxda gobolka oo ay Soomaalidu ku jirto ያሉ መሪዎች ደግሞ የሶማሌ መሪ የጅቡቲ መሪ የኤርትራ መሪ ኢትዮጵያ መሪ ደግሞ madaxda hadda joogta ee Soomaaliya Djibouti Eritrea iyo Ethiopia waxa looga baahan yahay oo kaliya in laga wada hadlo arrimaha nabadgelyada ee waqti xaadirkan balse waa in laga xaajoodo nabadgelyo waarta ma dhihi karno inagu aan heshiino ubadkeenuna had dagaalama qaabka wada hadalka oo saami qaybsi iyo maalgashi uu kamid yahay ayaa laga wada hadli karaa ma wada hadli karno ma aha wax suuragal ah ኢኮኖሚም ነው በኢኮኖሚ waa kuwe dekadaha Itoobiya raadinayso weydiintan oo muddo dheer taagneed ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hor khudbeynaya xubnaha xisbigiisa waxa uu markii ugu horeysay soo hadal qaaday dekada Saylac oo Itoobiya in badan isha ku haysay Zayla Somaliland sida aad taariikhda ku arki kartaan waa xilligii Somaliland ama Saylac ay ka talin jirtay boqortooyada Ifaat waa mid kamid ah wadooyinka inoo bannaan wadda kale waa Djibouti oo haddaba adeegsana dekadaheeda wadda saddexaad ee noo furan waa Adulus oo Eritrea ku taala si la mid ah sida kuwii hore dekada Asab iyo Muwassac ayaa iyana loo qaadan karaa dariiqooyinka Itoobiya u furan አሰብም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል እኛ የግድ በአሰብ ካልሆነ የግድ በምጽዋ ካልሆነ ma jirto dekad aan si gaar ah u raadinayno balse waxa kaliya aan u baahannahay waa daaqad aan ka leynsanno oo lagu helo qaab kasta oo heshiisa maxaa yeelay culayska dadka iyaga sii kordhaya ma sidi karno haddii uu waqtigu socdana xaaladdu faraha ayay ka sii baxaysaa አሁን ባለው ትሬንድ በተሸከምነው ልክ መሸከም አንችልም haddii aynan xilligan xal u helin oo aynan ku heshin shakilaan halis ayay noqonaysaa kaftan iyo ciyaar maaha waa arrin xaqiiqo ah oo ku xiran yahay jiritaanka Itoobiya አደገኛ ነው qayb kale oo khudbadiisa kamid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu ku sheegayaa in kaliya badaha aan loo adeegsan dekado balse ay xal u yihiin cunno yarida maadaama badda ay ku jiraan shidaal iyo kheyraad cunto loo isticmaalo xilliganna ay baahida cuntada ee dalkiisu sii kordhayso ናከ ኦልተርኔቲቭ ፉድ ሶርስ አንጻርም ሲታይ ሚናቅ አይደለም ሚናው Eritrea iyo Ethiopia oo hal dal ku midooba hadalkiisa ku aadan qaybtan waxa uu muuqday saadaan aan goorta ay rumoobayso aan la aqoon waa in Eritrea ay qaadato nidaamka federaalka Ethiopia sidaasna ay kaga mid noqoto dalweynaha Ethiopia ኤርትራን ኢትዮጵያን ብትወስዱ ግን ይኸውላችሁ ይሄ ሁለት ግንድ መልኩ ይለያያል Eritrea iyo Ethiopia waa laba dal oo kala duwan sida ay u kala duwan yihiin magacyada dalalka iyo calamada labada wadan laakiin waxyaabo badan oo ay ka midaysan yihiin ayaa jira
haddii aan hore ugu heshiin weyne nidaamka konfederaalka hadda aamintu way ka duwan tahay xilliyadii hore waa inay u badan tahay haddii aan qaadano nidaam sax oo cadaalad ah in fursadaha aan ku heshiin karno ay rajadoodu badan tahay ሁለተኛው ደግሞ የመሬት ልውውጥ arrin kale oo xal u muuqata waa isdhaafsi dhul ah ama dhulka oo la isweydaarsado waa xilligan aynan Itoobiya baahi weyn u qabin dhul tan u dambaysana waa arrinta ciidanka badda dad badan ayaa marka la soo hadal qaado ciidanka badda ee Itoobiya waxay ka hor keenaan dhaleecayn anigu waan la yaabanahay fikirkooda diyaar garow sidee loo dhaleecayn karaa waxaan u baahanahay ciidan badeed dhaqaale ahaan ayaan hoos u dhacnay laakiin dad ahaan waxaan nahay dal baaxad weyn ayuu rasaaraha Itoobiya ባህር ኃይል ሲባል የሚቃወሙ ሰዎች አሉ እኔ ይገርሙኛል ዝግጅት እንዴት ይጠላል dardaarankii Haile Selassie rasaaraha Itoobiya khudbadiisa waxa uu ku soo afmeeray inuu dadkiisa uga tagi doono dardaarankii Haile Selassie koobaad ee boqorka ka noqday Itoobiya abi waxa uu sheegay waxa uu isagu fulin kari waayo inay jiilka dama fulin doonaan ይኸውላችሁ የዛሬ 50 60 70 ዓመት Haile Selassie ስለ አባይ ሲያወሩ muddo laga joogo 70 sanadood ayaa Haile Selassie uu hadlay wuxuu ka hadlay arrinta biyo xireenka webiga Niilka markii loogu hanjabay inaanu biyo xireen ka dhisi karin webiga wuxuu ku calaacalay xilligaas anigu awood uma lihin maanta laakiin ubadkayga ayaa awood u yeelan doona አሁን ቀይ ባህር ትነካትና ትለኛለህ እኔ አቅም የለኝም ልጆቼ ያመጡታል si lamida anigu maanta haddii aan awood u yeelan waayo baddaas carruurtayda ayaa u yeelan doona ayuu khudbadiisa ku soo gabagabeeyay rasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hor hadlaya xubnaha guddiga xisbiga dalka Itoobiya maamula ee barwaaqo hadalkan ayaa rasaaruhu si aad ugu faahfaahiyay waxyaabo kala duwan oo la xiriira mowduuca baddaas iyo doonista Itoobiya haddii aad ku nooshahay Amerika Yurub Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga Payc waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC Zad Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa Payc